sida lagu daawacay beejka shirkadda ka shaqeysa amniga oo ka howlgasha magaalada Durban ee Recession Unit South Africa, muwaadin Soomaaliyeed oo 18 jir ahaa isla markaana la sheegay inay qoyskiisu ka tageen ayaa gargaar ka dalbaday xubin ka tirsan Rakshanka Unit South Africa ee magacooda loo soo gaabiyo Ruza oo ku sugnaa wadada Barzandi xaafadda MTH Kombi gelinkii hore ee maanta. Sida la sheegay, wiilkan yar ayaa awoodi waayey in uu ku hadlo luqadda Ingiriishka isagoona ku hadlaya keliya luqadda Soomaaliga. Saraakiishan amniga ayaa waxa ay sheegeen inay ogaadeen in wiilkan la dayacay oo ay u raadinayeen gargaar si uu ugu laabto Soomaaliya. Ma uusan wadan wax aqoonsi ah amaba dukumeenti socdaal ahi oo uu ku jiro baasaboor, taasoo kor u qaadaysa welwelka ku saabsan aqoonsigiisa. Waxaa loo gudbiyey saldhigga biliiska ee Phoenix Service ee gobolka Giziana si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo.